cabdi oo haddaan kaaga bilaabo noloshii taariikh nololeedkii cabdiraxmaan jaamac xasan cadhoole wuxuu ku dhashay magaalada jabuuti 1922 waxaanuu ahaa wuxuu waxbarashada ka galay marta quraanku dhameeyay oo sawirkan ku soo diray waa markii quraanka dhameeyay deetana wuxuu galay iskuulku galay wuxuu dugsi dhexe oo ka markaa laga bixi jiray ayuu ka baxay Faransiiska iyo af Carabigu saan ugu hadli jiray si wanaagsan markaa halkaas horta ku barbaaray markaas dambana halkaas uu ku guursaday hooyaday oo uu caruurta ku dhalay isagoo yar buu shaqo tagay markuu aabihii waxa laga masaafuriyay magaalada Jabuuti isagoo lagu eedeynayo inuu kacdoon guumeysdiidii uu ku howlan yahay isagoo markaa qaxootiya maalimaha kamida sida naloo sheegay uu raadi jiro casar marmar buu kooda amba labada suuqada tagi jiray markii ayday meelaha saddexdii weeday ay afartii dad u yimaadeen markaas ay jaamac waa la masaafuriyay dhawicada la dhaafiyay markaas isagoo qaxootiya ayuu magaalada Hargeysa ku dhintay kadib markuu aabihii dhintay isaga la wareegay xilka reerka halkaas uu shaqo tagay koriyay walaaladii waxa walaalaha inan iyo laba hablood halkaas uu gaarsiiyay marka halkaas ku koriyay sidaas ahayd wuxuu u shaqeyn jiray hay'adda tareenka ayuu ka shaqeyn jiray jaamac cabdiraxmaan aabbo goormuu halganka toos u bilaabay ee ay Faransiiska toos isugu dhaceen wuxuu ka shaqeynayay tareenka gaadiidka wuxuu noqday gudoomiyaha shaqaalaha tareenka xuquuqdooda u doon jiray waxa uu ahaa sandikadu ka madax ahaa isaga madax ka ahaa marka waxa dhacday in 1959 aduu xidhnaadkii in laga shir weyn oo ka dhacay magaalada Pekin ee dalka China in lagu casuumadeeyo markaasuu shirkaas ka qayb galay oo isagoo u doodaya shaqaalaha reer Jabuuti waxa kale uu jiray inuu isku soo maray markuu inuu safarana ku tagay wadanadii la oran jiray Shuuciga amba Romania Czechoslovakia dhulkaasoo dhan uu soo maray oo ardayda uu la kulmana wuxuu u sameyn jiray scholarship uu sameyn jiray kadib markii uu soo noqday ayaa sirdoonka Faransiisku wuxuu soo saaray waraaq uu leeyahay cabdiraxmaan cadhoole markuu diyaaradda ka soo dago wuxuu sito aad loo baaro ninka iyo fitirfaatir wixii saaray oo gacanta lagu dhigo wixii aad garan weydaan halkii baa lagu sugay diyaaradda baaritaan baa lagu sameeyay wuu iska soo baxay airportka xaafaddu iska yimi maalimaha kamida iyadoo Ramadaan ayaa labadii duhurnimo markii hore waxa lagu horeeyay meel ay ururka shaqaaluhu office ku lahaa xafiis ay ku lahaayeen ayaa horta gaaladu baaritaan tagtay nin ka shaqeynaya markiiba fariin soo diray waa nala baaray cabdiraxmaan jaar garoob labadii barkiyooda ayaa gurigiina lagu soo garaacay gaaladii ku la yiraahdo gendarmeriga ayaa soo galay waraaq bay tuseen aabbo ay leeyihiin waana la soo diray gurigaanu baarayna gurigii bay baareen meel walba way galeen wax alla wixii sawir yaalay ee uu kala soo noqday China gabigooduba way qaateen xabad sawir oo imika hayna ma jirto markaas ilaa 3-4 joonyadood sawira ayay qaadeen waxa dhacday cabdiraxmaan oo wuxuu haleelay markii albaabku ka sii diyaar garoobay waraaqa xasaasi uu hayay ayuu meel adag dhigay markii dambe ay baaritaankii dhameeyeenna waxay yiraahdeen waan ku kaxaynaa waraaqdana waan seenaa markaas uu daan soo falfal dhaqdo waraaqdii uu ku haylaabnaa buu ku laabay wuxuu tagay halkii baadkii uu tagay meel buu ku tooray habaryartay buu markay la kulmay ayuu yiri waraaqahan halka dhigay meel dhiga markaas la xiray 3 bilood buu xidhnaa China looga soo dacwiyay ninka la sii daayay kadib waxa dhacday kacdoonkii inaad maqashay gobonimo doonka 1966 waxa yimid magaalada Jabuuti odaygii madaxweynihii Faransiiska General de Gaulle dadka mudaharaad bay kala hortageen iyagoo ku dhawaaqaya gobonimo rabnaa halkiiba halganka halgan labaad ka bilaabmay aabbo kadib had iyo goor uu dhoofi jiray cadan buu tagi jiray wuxuu soo qaadi jiray waraaqaha la daadinayo
wuxuu ku soo laabi jiray dukaan yaruu furtay dharka uu keenayo ku soo laabi jiray gurigaa la keeni jiray gurigaa laga qaadi jiray halkaasaa laga daadin jiray oo xaafadaha magaalada lagu faraqi jiray 1967 waa kii dhacay doorashadii la odhan jiray wii iyo noodii uu faransiisku boobay maalintii 21aad ayaa aabba guriga laga qaaday niman France ka yimi ayaa qaaday oo guriga aan garanayn islaan jaarkayagaaba aragtay iyadoo guriga la tilmaamayo markaasay tiri Cabdiraxmaan oo guriga waa la tilmaamay si aniga caruurtayda laga dhaxaa sidaasaa loo qaaday 22keedii ilaa 8keedii way torjargareynayeen dee jirkiisa lama garanin indhaha way ka tuureen carabka soor bay ka geliyeen si walba jirkiisa oo dhani wuxuu shaandha lagaga dhigay 3 goor ba kafanta laga bedelay dee sidaasaa loo galay waxaa la sheegayaa markii hore waxay dhigeen meel la yidhaahdo balbala si ay u yidhaahdaan isagoo baxsanayaan tooganay wixii way socon weyday Paris baa lala hadlay Paris waxay ku talisay in meydka la siiyo dadkiisa la siiyo annaga noomay keenin waxay geeyeen dhakhtarkii weynaa bay ku tuureen odaygii meesha waashmaankii bay sii jeeso way duubeen way ku tuureen way ka carareen subaxdii waa laga soo qaaday meydka xaafadda la keenay lagu mayro si weyn loo aasay bal haddaba aad u soo koobay sidii loo dilay maalintii la dilay bal dadkeena dhageysanaya wax uga sharax inta aan Jabuuti lagu dilay Cabdiraxmaanow isagoo magaalada Paris jooga ayaa la isku dayay in lagu dilo Paris sidii loo dilay odaygii Marookaanka ee la oran jiray Mahdi Banbeerka oo isna shaqaalaha Marook ku dacwii jiray waxay niman markaa joogay Faransiiska noo sheegeen inuu aabba intuu yimid hoteelkayga maqsinkayga baa la baaray markaas waxay yiraahdeen maalintii oo dhan anaga la soconay ilaa aan diyaaradda soo saaraynay kamaan horin annagoo ka baqanayna in la qafaasho oo la dilo taasina way dhacday waxay ka dhacday Paris waxa kale ee aad halka laga raacay aabbo ee looga ay Faransiisku aad ugu daba galeen waa markii uu cadan tagay cadan wuxuu tagi jiray waxbuu ku soo daadaabici jiray wuxuu ka keenay cadan 6 Land Rover oo loogu talagalay ololaha in lagu galo cid kale way ku dhici weyday aabbayda anaa geynaya wixii doon haygu gaaraan isaga ka soo dhaadhiciyay dikadda Jabuuti Faransiiskuna way ogaadeen way notice gareeyeen magaciisa ku qornaayeen cid alla cid ku dhacda waa la waayay aan Cabdiraxmaan ahay deegeesinimo halkaas ka gaaray maalintii 19 waxay maalin axada ee Mars 1970 waxay niman la joogaan noo sheegeen in jimci sabtidii ay ugu yimaadeen meel ku qeylayay tukaan yar ku lahaa inay dhac Cabdiraxmaanow waa la footeenaya bari haddaan foodka la wan ku dilaynaa waxa doontaan sameeyo waxa doonitaan sameeya anu nin baqanaya ma yihiin wixii ay la noqoto sameeya dee arrimuhu sidaas ay ahaayeen wakaas waxa kala mar aynu soo hadal qaadnay taariikhda si loo xisaab wallahi dee Cabdiraxmaanow qofku markuu wax galayo horta dee taariikhdu qof waloo noolba taariikhdu way dul saaran tahay aynagana hadlaynaa taariikhda meel baynu ka galaynaa qof nool oo aan taariikh lahayn ma jiro taariikhda waa lagu kala mudan yahay qofba meel buu ka galayaa qofna ku galaya yacni dhaqan wanaag qof ku galaya mataqaanaa dad la socod wanaag qof ku galaya halgan qof ku galaya xumaan ku galaya qof taariikhda meel xun ka galaya qof aan taariikhda galin ma jirto laakiin waxa weeyaan qofku hadduu ku aaminsan yahay inuu mataqaanaa waddankiisa u halgamayo oo waajibkiisa gudanayo dee taariikh in la xuso oo la ixtiraamo weeyaan nasiib darrada Afrikana waxa weeyaan waxaanay wali Afrika fahmin in horumarku uu ku jiro in taariikhda la xurmeeyo waayo haddii taariikhda la xurmeeyo dadku waxay wadaniin bay noqonayaan waddankay jeclaanayaan markay shaqo tagaan waddankay u shaqaynayaan waddankay ilaalinayaan laakiin waddan aan taariikh lahayn dee waddan maaha ummad aan taariikh lahayn waa ummad aan jirin laakiin ummad walbaan waxaan aaminsanahay inay taariikh leedahay ummad aan taariikh lahayn adduunyada inay jirto ma aaminsan way leedahay ummad walba taariikh bay leedahay